dilalka dad badan sameeya dawladda ay ku jiraan hadaa cabsanaysaan anaa sheegaya aamina waxaa dilay qofkii dilay ummadda Soomaaliyeed intii ka horeysay oo dhan waxaa dilay dadkii dilay Cabdicasiis Afrika waxaa dilay kuwii dilay kuwa badan oo ka dambeeyay ama ka horeeyay maxamed macallimo maxaa loo beegsaday su'aalo badan oo meesha yaalla oo ay tahay in laga hadlo ayay tahay ay ku kamid tahay ku jiraan waxaa ognahay inuusan jirin baaritaan cadaalad ah inuu hadda la filayn laakiin maalinkii shalay waxaa soo yeeray qaramada midoobay inay danaynayso inay samayso baaritaan madax bannaan kuna baaqday arrintaas warbaahinta indhergaradka ehelkii qaraabada waxa ugu baaqay arrintaas inay xoojiyaan in la daba istaago la xoojiyo waxay u baahan tahay dadaal juhdi dheeraad waxay u baahan tahay maalgelin waxay u baahan tahay advocacy ama u qareemis iyo daba socosho u baahan tahay haddaan la helin baaritaan dhab ah oo arrintaas gunteeda aan la gaarin weliba abaabulayaasha yaan lagu mashquulin hal qof oo fuliyey abaabulayaasha haddaanan la dabagelin isdaba taxan ilaa beledweyne ilaa waa beri isdaba taxan haddaan la dabagelin way adkaanaysaa in dadka kale la badbaadiyo annaguna beriyaa dhiman karnaa kuwiina meesha fadhiyo oo quruxda badanna beriyaa dhiman kartaan sidaasaa maalinba hal loo siibayaa oo hal loo cunayaa waxaan rabaa arrintaas inaan baraarujiyo oo adkeeyo cabsina aysan looga harin oo cabsi aan looga cararin haddaan la helin baaritaan dhab ah oo arrinta aan la baarin oo si maaragtahay sax ah aan loo soo saarin kuwii ka dambeeyey waxaan sameeyey arrintan ma joogsan doonto ma hari doonto aamin waxaa loo beegsaday waxaan aaminsanahay fikirkeeda siyaasiga ah ka shaqaynta kiiska ikraan tahliil ay ka shaqaysay ay u hadashay xuquuqda muwaadiniin badan oo ikraan ay ka mid tahay ay ka hadashay dhacdadaasaa loo beegsaday loo dabagalay loo daba taagnaa la isugu dayay in laga reebo baarlamaanka laga reebo tartankiisa markii ay tagtay beledweyne iyo ka horba ilaaladii ay wadatay looga qaaday intii ay joogtay beledweyne loo handaday dhowr jeer intii ay joogtay beledweyne 23 maajna dhacdadaas ayaa dadkii waxaan qorsheynayay u hirgashay oo u fushay waa inaan meesha looga harin kulanka ducada iyo tacsida uu dhamaanaya laakiin baaritaanka iyo daba socoshada iyo farta inta lagu fiiqo kuwa xun ee daalimiinta ah waa inaysan dhamaanin waa inaysan harin waxaa laga yaabaa qaarkiina u fikirtaan qabiil iyo ka fikirtaan iyo deegaan arrintu sidaas ma aha dad intaas ka badanaa walaalayaal la dulmiyey kuwo kalena waa la dulmin doonaa haddaanan maanta dhihin maya haddaanan diidin waxaan rabaa arrinta inay dhab noqoto haddii kale 3 beri 4 beri maalin kasta tacsiil la isugu imaan doonaa berri iyo isbuuca dambe iyo bisha dambena kuwa qiimo badan ayaa saas u bixi doona dilalka dad badan sameeya dawladda ay ku jiraan hadaa cabsanaysaan anaa sheegaya guryaha idinla joogaan mushaarkiina ay qaataan maarta bil ahaan u siisaan hadaa diidaysaan iyo hadaa nacaysaan iyo hadaa aqbalaysaanba ilaa qofka Soomaaliga uu run ka sheego iimaankiisa run ka sheego uu dhaho maya lacagta aan bixiyo dad laguma dilaayo maya dawladnimada dad laguma dhibaatayna ilaa qofka uu dhaho xaqiiqadu waxay tahay in arrintan joogsan doonin